ciidamada amniga magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen nin ku eedeysan dil habeen ka hor gabar dhalinyaro ah loogu geystay magaalada Gaalkacyo. Mas'uuliyiintan ka tirsan laamaha amniga maamulka Puntland ee gobolka Mudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay nin ku eedeysan dil habeen ka hor ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee waqooyiga gobolka Mudug kaasi oo loo geystay gabar lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Nimco Cumar Shire Xurey. Nimca ayaa da'deeda lagu sheegay 22 sano waxaana waqtiga la dilayay ay ka soo baxday salaada taraawiixda ee gudaha magaalada Gaalkacyo waxaana dhuunta toore uga dhuftay koox hubaysan oo goobta ka baxsatay. Gabadha oo dhaawac culus qabta ayaa markii dambe loola cararay cisbitaalka magaalada Gaalkacyo ee waqooyiga gobolka Mudug halkaas oo ay ugu dambeyntii ugu geeriyootay. Ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa kadib saacado baaritaan ah oo ay ka sameeyeen gudaha magaalada Gaalkacyo waxa ay shaaca ka qaadeen inay gacanta ku soo dhigeen nin ku eedeysan dilka gabadhaasi kadib markii sida ay sheegeen la tixraacay raadka iyo tibaaxa laga helay eedeysanaha iminka gacanta ku jira. Saraakiisha ayaa sheegay in xilligan baaris ay ku wadaan ninka lagu tuhmayo in dilka gabadha uu ka dambeeyay waxaana ay warbaahinta u xaqiijiyeen in maxkamad la soo taagi doono isla markaana lagu qaadi doono waxa uu sharciga ku mutaysto.